miyaad ogashahay mise ma ogolin su'aal maaha waa go'aan aan rafcaan cidina ka qaadan karin oo kama dambaysa nuxurkii annagu aanu u jeedno wuxuu ahaa badbaadinta xusbiga ucid marka aad danaha shakhsiyaadka ka tagto heshiiskanina kama salguurin badbaadintii xusbiga ucid waxaannu ku soo biyashubanayaa in labada dhinac ay si wada jir ah u dhaqangeliyaan heshiiskii ay wada galeen 2012 heshiiskaasina wuxuu ahaa kii aannu isku haysannay murankuna ka qabsanay waxaa kale oo iyadana uu heshiiskani caddaynaya in marjacuu u noqonayo guddida 10ka ah ee 10ka xubnood qabanqaabada shirweynaha inuu marjac u noqonayo hoggaanka sare waa ayuun baan doonayaa inaan iftiimiyo waxa weeye 1 guddoomiyaha 2 guddoomiye ku-xigeenka saddex oo aniga ah 3 ku-xigeenka xoghayaha oo cabdinaasir ah 3daa xubnood baa ka jira hoggaankii hoggaanka 6 xubnood ee hoggaanka ah waxaa kaloo isla jooga xoghayihii golaha dhexe inkastoo uu kan yahay shirweyne haddaba haddii aannu labadayada dhinac diyaar u nahay inaannu xusbigayaga si wada jira u badbaadin oo aannu dib isu soo kabno oo aannu tartanka si furan uga qayb galno oo aannu higsigii bahweynta ucid si wada jira u hirgelin waxaa qasaba inuu caqligu shaqeeyo hebel baa laga adkaaday iyo heblaaya adkaatay maaha halkan waxaa taalla dan qaran halkan waxaa taalla badbaadin xusbi qaran halkan waxaa yaalla xusbi ay ummaddu ka sugayso oo ay u aragto markaynu runta isu sheegno inuu yahay xusbiga laga dhex dooni karo ee haddii aan la yidhaah isbeddel dalkan u horseeda in uu waddadii hore aynu muddada dheer soo haynay wax ka beddeli karo marka waxaan ugu bishaaraynayaa dhammaan isbeddel doonka iyo inta danaynaysa somalilan kelmadu maan idiin sheegaya waar isbeddelka hadyad la isuma siiyo sida keegga aroosyadan intoo foog lagu qaado afka la isuma geliyo wuxuu u baahan yahay in loo guntado sidaa daraaddeed fursaddani waxayna siinaysaa inaannu dib uga soo kabanno murankii jiray maanta oo ay maxkamadda sare go'aan soo saartayna wuu dhammaaday khilaafkii cod